السلام عليكم صاحب يار كسو دوادا جنالكيني النخاية ميديا يوتيوب iyo Facebook page oo aad ka sugayseen warar sports oo xaqiiqda ku saleysan maanta waxaan idin soo gudbin doonaa akhbaaraadka ciyaarta maanta dhexmari doonta West Ham United iyo Manchester City aynu haddana gudaha u galno barnaamijkeena maanta balse inta aanan guda galin waxaan idin xusuusinayaa in like share subscribe iyo comments-ka uu dhankiina yahay waxba hareebanina waadna ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad ugu xiran tihiin channelkeena Alnaqaya Media YouTube iyo Facebook page-kaba Erling Haaland ayaa rajaynaya inuu ka soo muuqdo kulankiisa ugu horeeyay ee Premier League axadda maanta ah iyadoo Manchester City u safrayso West Ham United kooxda martida loo yahay ayaa sidoo kale haysata weeraryahan cusub iyadoo Gianluca Scamacca laga keenay Serie A-da Talyaaniga City ayaa lagu garaacay kulankii ugu dambeeyay ee Community Shield isbuucii hore laakiin waxa ay ku bilaabatay xilli ciyaareedka iyagoo ah kooxda ugu cadcad ee hanashada horyaalka Hammers ayaa soo xirtay xilli ciyaareed fiican iyaga oo u soo baxay Europa Conference League oo la lihii labaad oo xiriir ah halkaas oo qaab ciyaareedkooda horyaal ay ku kasbadeen booskooda bartamaha isbuuca halkan ka ogaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato ciyaarta ka hor goorma ayay dhacaysaa ciyaarta West Ham iyo Man City ciyaarta ayaa bilaabanaysa 4:00 PM galabnimo ee PST ama British Summer Time xilliga Afrikada barina 6:00 PM oo maqribnimo waxaan lagu qabanayaa garoonka London Stadium maalinta Axadda ee maanta ah 7 August wararka laga helayo labada kooxood ciyaarta ka hor ayaa waxay sheegayaan in saxiixa cusub ee Hammers Nayef Aguerd uu dhaawac ku maqnaan doono kadib markii uu dhaawac canqowga ah ka soo gaaray xilli ciyaareedkii hore taas ayaa xadidaysa dooqyada David Moyes ee daafaca maadaama Issa Diop uu doonayo inuu baxo Gianluca Scamacca ayaa ah xidiga ku cusub weerarka laakiin waxa laga yaabaa in uu kaydka fadhiyo kulankan Man City ayaa weeraryahankeeda cusub Erling Haaland soo gelisay bilowgii kulankii Community Shield laakiin wuu ku guuldareystay inuu qaab ciyaareed fiican soo bandhigo kulankaas Aymeric Laporte ayaa dhaawac ku maqan labadii kulan ee ugu horeysay xilli ciyaareedkan halka daafaca kale ee John Stones uu shaki ku jiro Nathan Ake ayaa ku soo bilaaban kara ciyaarta waxa la saadaalinayaa in labada kooxood line-up-kooda uu noqon doono sidan West Ham United Lucas Fabianski Koval Zuma Dawson Ben Johnson Rice Thomas Soucek Gerard Bowen Pablo Fornals Lanzini Michael Antonio dhanka Manchester City waxa lagu soo bilaabi doonaa ciyaarta sida la saadaalinayo Ederson Walker Ruben Dias Nathan Ake Cancelo Rodri De Bruyne Bernardo Silva Phil Foden Haaland Grealish haddaynu saadaalino ciyaarta Man City iyo Fulham dhexmari doonta Hammers ayaa ku adkayn doonta City laakiin tayada weerarka ayaa guuleysan doona waxaana saadaashu tahay West Ham 1 Man City 2 saaxiib yaal wararka aynu kaga hadlayno ciyaarta dhexmari doonta Man City iyo West Ham United intaas ayuu nooga dhan yahay waxaanu sheegaynaa waa saadaalin wax dhab ah oo aan hubna ma aha markuu aynu arki doona xaaladdu siday noqoto wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh